kulankan oo ahaa mid diiradda lagu saarayo xorriyadda saxaafadda iyo caqabadaha kala duwan ee ka hor yimaada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maxadka horumarinta iyo cilmi baadhista bulshada ee Somaliland kaasoo ku soo beegmay shirweynihiisii afraad ee maxadkaasi. shirkan oo lagaga doodayo xorriyadda warbaahinta iyo dhibaatooyinka la soo dirsa ayaa waxaa ka qayb galay warbaahinta kala gedisan, hay'adaha iyo ururada wadaniga iyo kuwa caalamiga, jaamacadaha dalka. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuso oo si rasmi ah u furay kulankaasi ayaa ka warbixiyay tirada ay marayaan warbaahintu imika, kuwa soo socda iyo waliba faa'iidada iyo khasaaraha ay dalka u leeyihiin. halkan maanta waxa ka soo baxay Somaliland 14 wargeys. waxa xafiiskayga yaala 750 wargeys oo kale oo ruqsada la siiyay oo aan wali soo bixin jeebadaha lagu haysto. waxa yaala xafiiskayga 108 website oo magacyadooduna jiraan 86 kamidina ay fakshan gareeyaan oo ay shaqeeyaan. waxa Hargeysa jooga 8 TV station wakiiladoodii ama iyaga laftoodii. waxa xafiiskayga yaala 5 TV station kale oo ruqsada haysta oo soo socda iyaguna. waxa xafiiska yaala waxa kale oo dalka ka jira 3 TV station oo aan ahayn kuwa rasmi ah laakiin mobile oo shaqeeya oo aan u maleynay mid ka mid ah meelahan inay joogto halkan ay fadhino. waxa dalka laga dhageystaa 3 idaacadood oo waaweyn oo laba dibadda laga leeyahay. taas waa mid. waxaan idinka iloobay 230 codsi oo imika ah oo qaar cusub ah oo aanan wali ka jawaabin oo xafiiska yaala ayaan idinka iloobay oo iyaguna jaraa'iduna iyo TV website-yadu waxba nama weydiistaan. ma aha kuwa ruqsad ka qaata dawladda. meel alla meel laga xukumaa ma jiro. waxa u shaqeeya hal qof. waxa leh hal qof. wakiilkiisuna waa hal qof. qofkaasina meel uu accountable u yahay ma jirto. marka xeer alla xeer saamaxay ama diiday ma jirto. si loo soo qabtaana ma jirto. waa inaan reportera had iyo jeer website-kana waxa leh inaan dibadda jooga inta badan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee Somaliland Mudane Bashiir Cabdi Xariir oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta kulankaasi ka hadashay ayaa ka waramay saxaafadda iyo waliba faa'iidadeeda waxaanu kula dardaarmay qaybihii kala duwan ay ka qayb galay kulankaasi inay ka soo saaraan muddada 2 cisho ee soo shirkaasi qodobo muhiim ah oo warbaahinta lafdhabar u noqon doona. agaasimaha maxadka horumarinta iyo cilmi baadhista bulshada ee Somaliland Mudane Maxamed Fadal oo isna ka hadlay kulankaasi ayaa ku dheeraaday ujeedooyinka ay u soo qabanqaabiyeen shirkan iyo waliba muhiimadda uu warbaahinta u leeyahay. shirkan wuxuu ku saabsan yahay warbaahinta Somaliland, xorriyaddeeda, mas'uuliyaddeeda, maxaa dhibaatooyin haysan kara, maxaa opportunities ay haysataa ayaynu daraasadeynaa. wasiirkii hore kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Somaliland oo isna ka mid ah madaxda madashaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shirarka noocan oo kale ah waxaana warbaahinta kala duwan ee Somaliland uu kula dardaarmay inay ka fogaadaan wararka iyo waliba barnaamijyada kala duwan ee baahinayaan ee dalka wax u dhimaya. kulankaasi oo muddo 2 cisho ka socon doona hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa lagaga doodi doonaa caqabadaha kala duwan ee ku gadaamay warbaahinta Somaliland iyo waliba xorriyadda saxaafadda.